Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ii kulansiiyey oo ii suurtageliyey inaan joogo magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu barakaysan ee maanta dunidan ku yaalla. Insha Allahu tacaala waxaan idiin sheegayaa macluumaadkeeda idinka laga raba inaad garataan. Magaaladan joogo waa magaaladii ugu horreysay oo laga sameeyo dowlad islaami ah. Sidoo kale magaaladan waa magaaladii ugu horreysay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu yimaaday uu ka dhisay masaajid. Sidoo kalena uu shaqadii labaad ee qabtan ay ahayd inuu walaaleysiiyey labadii qabiil ee carabta ahaa ee ku dagaalamayay magaaladaas Aws iyo Khasraj oo muddo fara badan ayagoo isdagaalay ilaa 100 sano ka badan. Markuu yimaaday ay walaalo u walaaleeyey. Sidoo kale waxaan joognaa magaalo uu ku yaallo masjid ka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo haddii aad hal salaad oo ku tukato masaajidkaas ay u dhigmato 1000 salaadood masaajida kale aad ku tukato tusaale ahaan magaalada ku yaalla iyo dalka aad joogto. Sidoo kale waxaan joognaa magaalo ay ku soo degeen 29 ka mid ah suuradaha quraanka kariimka ah. Sidoo kale waxaan joognaa magaalada uu ku aasan yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Dabcan waa garteen oo malanaya magaalada Madiinata al-Munawwara muddo yar oo kooban baa meelahan sii joogaya magaalada sii joogaya. Insha Allahu tacaala magaalada Makana u gudbaya. Hadda waxaan joogaa masaajidka ku yaalla aeroboortka Prince Maxamed bin Cabdilcasiis oo magaalada Madiina ah. Madiina waxaa ugu soo hormaray dhowr waxyaalood. Kow, hadhow markaa baxayo oo kale waxaad ka baxaysaa aeroboortka ugu weyn ee laga soo galo dadka xajka iyo cumrada u yimaada. Aeroboorkaas oo noqon doona Jidda oo magaalada Maka u dhow. Si marka aan hadhow aan carqalad safar u gelin ama kharashaadka safarka isoo ugu badan ba halkan ugu soo hormaray. Sida labaadna waxa weeye in miiqaadka laga soo xirto cumrada ama xajka. Anuu hadda waxaan u imaado cumro ayaa insha Allahu tacaala halkan ii fudud oo mataqaanaa haddii Ilaahay ku yaalla waxa u dhow Dul Xulayfa oo ka mid ah 5 miiqaad ee laga soo xirto mataqaanaa cumrada oo waana rukni ka mid ah rukunada mataqaanaa arkaanta cumrada iyo xajka laftirkeeda. Insha Allahu tacaala magaaladan waxay leedahay meelo muhiim ah oo la booqdo. Masaajidka nabiga ka mid ah sallallahu alayhi wasallam inaad 5 salaadood ku tukato maalin alla keeno wax ka fadli badan oo aad u weyn weeye. wax fadli aad u fadli badan tahay. Sidoo kale waxaan booqan doonaa shuhadaa Uhud iyo qabuurahooda insha Allahu tacaala masjid shuhadaa. Sidoo kalena waxaan tagi doonaa meelo fara badan insha Allahu tacaala. Kadibna cumrada halkan magaalada Madiina wax cumro ama xaj quseeyo oo ka dhacaya ma leh. Wixii acmaal iyo mataqaanaa cumro ku saabsan magaalada Maka iyo masjidka xaramka ay insha Allahu tacaala ka dhacayaan insha Allahu tacaala. Haddii Ilaahay ku yiraahdo marka halkan timaado waxyaalaha ugu horeeya waxa weeye soo safarka kugu fudud kugu noqdo insha Allah in aad ka bilowdo in aad samaysato kaarkaaga hadda wadatay dalkaaga uu ku shaqeynayo ha isticmaalin lacagta iyo internetka xad dhaaf buu kugu noqonayaa. Waxa ku fiican inaad shirkadaha qaadato ee wadankan yaalla. Sidoo kale haddii aad aeroboortka timaado insha Allahu tacaala waxaad heli kartaa basas free ah inaad raacdo loo baahna baabuurta tagaasida oo kale ama baabuurta kale lacagta lagu bixiyo ee VIP-ga. Sidoo kalena waxaad helaysaa xataa haddii aad ka baxayso Madiina oo aad u socoto magaalada Maka ama Jidda oo kale tareen dheereeya oo 2 saacadood si aan ognahay labada magaalo Maka iyo Madiina waxay isku jiraan 450 kilomitir meelahaas. Marka waxa weeye haddii aad raacdo mataqaanaa haddii Ilaahay ku yiraahdo tareenka dheereeya oo expresska lacag saa'id aad u yar buu ka qaadaya. safarkaagana wuu qurux badnaan doonaa insha allahu tacaala.